sheekh hooyaday waxay rabtaa in mar walba aan biilo oo bil joogto ah aan u diro aniguna ma awoodo sababtoo ah waxaan leeyahay xaas iyo caruur qurbahana waa joogaa gaari aan xaaska u soo qaaday oo cusub na payment ayaan bixiyaa lacag gaaraysa $700 bishii sidoo kale biilal kale ayaan xaafadda iyo guriga ku bixiyaa sheekh hooyaday haddii lacag la inkaarto inkaartaas miyay qabanaysaa maxaase sameeyaa بسم الله الحمد لله والصلاة على رسول الله runtii su'aashan waa arrin laga naxawaaye qof hooyadiisa dhahayo waxaan siiyana ma haayo caruurteedana waxaan siiya waa haayo guriga u jaaray biilna waa siiya xaaskana waa biila bal intaas ka daran waxa uu soo qaaday gaari braniyo soo qaaday oo payment aan ka bixiya qofkaas waxaan dhihi lahaa horta markuu wad isku noqo gadaal isugu noqo caasinimo hadii jirto taas waa caasinimo waaye hadii caasinimo jirto subxaanallah dadku waxaa la yaabanaa sometimes hooyadii dhashay oo caloosha ku soo waday 9 bilood soo waday nuujinaysa intaan la soo ekeysay markuu soo weynaado gabar yar markuu arko uu guursado oo meel kale ka timaado hooyadii iyo familka dhan buu hilmaama oo gabadhan hadda isbarteen birina ay kala tagi karaan oo hooyadiisa laga yaabo inuu u gooyo taas waa caasinimo waay meesha ugu weyneed waay gabadhan xaqay leedahay ilaahaasi hooyadana xaqay leedahay ilaahaasi ma isoo galaan mana istaabtaan hal hooyo adduunka ka jirto hal hooyo leedahay hal qof baa calooshiisa ka soo baxday oo korkooda ku soo saxarood ku soo kaadisay naasna ku soo siisay intaana kula soo ekeysiisay halkaas qof waa marka qofka lagaaga baahan yahay ina ixtiraamtid run sometimes waxa ka yaabaysa qofku wuxuu ku leeyahay xaaskii waa biili karaa kan waa biili karaa kan waa biili karaa laakiin hooyadii يعني waxay ku tusaysaa hooyada biilkeeda inay culays ku tusaysaa culays hadii san culays ahaa lahayn ilmaha biilkooda ba kama shii kama cabaado xaaska dhiibkooda kama cabaado ijaarka la bixinay kama cabaado taas waxay ku culays inay ku tahay qofkaas waxa dhihi lahaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baq gadaal isugu noqo wallahi sa hooyada u gashida ayagana ku galayeen biri caruurtaada mujeeda ameesha dhihus wax walba asiinaysid saa u gashid hooyada iimaanta ka arkeen aydan ku galayeen xaaskan hooyada saan hortaada uu galaysid agteeda qiimo kama leedeed ku taala dadka qaar kood waxa la inuu xaaskiisa rabo inuu ku soo sabo soo hooyadiisa inuu xumay xaaskiisa ku soo saba waxaan rabaa inaan dhaho qofkaas xaaskaaga agteeda wallahi qiimo kama leedeed waxa qalbigeeda galaaya ninkii tii dhashay saan u galaybo ani biri saan oo kale uu gali karaa marka waxaan dhihi lahaa nimano gadaal isugu noqda ilaahay laga baqo hooyada teeda su'aalni soo gashay maba ahanba biilkeeda waajib ku saaran waa dadka qaar koolay hooyadii u baahan hadii u baahneen si $100 dii ku weydiisay si kontinent ku weydiisay si ha u baahnaatay u baahan adigu ma dirsan adiga waa u baahneen markeeda waxa dhigi jirtay kana u baahana oo ku soo gadi jirtay oo ku siin jirtay